ay Soomaaliya federaal qaadato ma waxa habboon in awoodda loo badiyo dowlad goboleedyada mise dowladda dhexe saashadan ugu dimugtay ya فكرك نوع عاصم سرقة نقولكن دولة ده حين لابد يا ها وعاء هبون فدرال ما تدعو نسوي على درال مركا لوش سكوبا ونظام دولة النمو وقصنا الدستور وعطوا قالوا لا جماعة ولا فرقوا ما هنقاذنا فدرال كان حنون متاجر سنين ما إن تاجر سنينه ونما يفضانه الصومالي أمد مسلم أطوء فدراليسيم واحنا سمينا إلى مو فدراليسيم أنا هذا جرير بان أحياني فدراليسيم وابا روابا لكن دينا الصومالية مركان كفيرين دادك فدرال كقاتي ما أهين داد oo macnaha fikirka Soomaalida umada Soomaaliyeed wada ma ahayn Soomaaliya hadaan diin heshiisiin loo sameeyn oo aan la sukeenin oo heshiis aan dhex dhigin waxa weeye waxba ka hagaagmaya cilmi baaristan ku saabsan arrimaha federaalka waxaan ka lahayn saddex ujeedada koowaad waxay ahayd bal in aan baarno aan u dhabagalno aan u koorgalno arrintan ku weynaatay dadka Soomaaliyeed oo la yiri dalkii waa la federaaleeyay iyadoo aan faham weyn laga haysan qaabka federaaleynta marka inaan baarno siyaabaha dalka loo federaaleyn karo ujeedada labaad waxay ahayd inaan sare u qaadno fahamka ee dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyintooduba ka haystaan federaaleynta dalka qaababka loo federaaleeyo caqabadaha ka hor iman kara fursadaha badan ee jira hadafka saddexaadna wuxuu ahaa in natiijada ka soo baxda daraasadan ay noqoto mid wax ku biirisa dadaalka iyo dooda heerka qaran ka socota ee ku saabsan federaaleynta dalka oo ama xagga dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ka socda ujeedada guudna waxay ahayd markii la soo koobo runtii in macadkeenu sida ku cadba higsigiisa aragtidiisaba in uu waxuun ku biiriyo nabadeynta iyo xasilinta iyo kala dambeynta dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxyaabihii aan ka baranay meesha markii aan ku qabanay wada tashiga waxaan oo soo baxday Muqdisho inay tahay cosmopolitan city macnaha magaalo oo magaalada maadaama ay tahay magaalo madaxda inay degan yihiin dad badan oo ka yimid gobolada Soomaaliya oo dhan marka inaan hal group deganin ama hal qolo oo marka Muqdisho marka waxay reflect gareysay oo noo soo baxday inay different macnaha sida loo maleynayna ahayn oo ay mataqaanaa dadku badankoodu ay support gareeyaan federaalka marka tan kale oo macnaha ay ku support gareeyaan federalismka waxay dhahayn federalismku wuxuu keenayaa power sharing macnaha in regionada iyo dowladda dhexe inay share gareeyaan awoodda markii hore ku urursaneed dowladda dhexe marka waxyaabaha ku diideen markii oo dadka aan weydiinay oo macnaha hadii processka ayna ku qanacsaneenina maxay tahay sababta aad ugu qanacnina marka waxay noo sheegeen in waxyaabaha keenaya ay kamid tahay in mataqaana inuu xoojiyo dareenka oo qabiilka ama clan identity-ga inuu xoogeynayo macnaha oo hadii federaal la sameeyo ay keenayso macnaha regionada inay qabsadaan qabiilada ugu xooga badan meeshaas boqolkiiba 56 dadka meesha ka soo qayb galay waxay dhaheen sida wax loo wado kuma qanacsanin marka taasna waa number aad u badan waay macnaha inkastay support gareysay inkastay ay ayidayaan mataqaana dowlad goboleedyada in la sameeyo ama in la sameeyo maamul goboleedyo ama federaal haddana boqolkiiba 60 waxay leeyihiin weyga sida wax loo wado xoogaa wuxuu keenayaa dhibaatooyin laakiin anigu waxaan ku bogaadinayaa goboleysiga oo aan ku jeclahay laba sababood sabab waa horumarka ay higsanayaan oo gobolba gobolka kale tartankii meel fiican marayo waa midka kale waxa waaye haddii la isdiriray walaalkayga iga soo horjeeda wuxuu haystaa beertaydii wuxuu haystaa baabuurkaygii
walaalow beertiiyo baabuurka isii waa heshiinay waa ku rabaaye may rabtaa kala marraysataanahe waa isu baahannahay ma kala goono dad walaalaana war beerta isii maya kuma siinayo baabuurka isii kuma siinayo taas mayna kala qabataa jeer taa la xilliyo oo beerta nin walba walaalkay beertayda isiiyo anna aan gurigiisa siiyo oo baabuurkiisa siiyo haddaan taas samayno gobolaysi uma baahnin waxna uma baahnin waxa gobolaysiga keenaya waa cuqdada nagu kala jirta laakiin dhinaca Soomaaliya markaan ka fiirino dadkii federaalka qaatay ma ahayn dad oo macnaha fikirka Soomaalida ummadda Soomaaliyeed wada ma ahayn dad Soomaalida matali kara ma ahayn marka waxaan qabaa dad yar oo kooban oo gacmo shisheeye ka dambeeyaan inay noo keeneen federaalka fakirkan oo federaalka Soomaaliya cidii doonta ha u keento aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay federaalka inuu anfacayo ee dadka hadda dhulka ku soo yaraa rabo oo uu digayo ku yaraana la yaamaasin federaalka maanta jira waxaan u fahmnay inuu yahay qabyaaladan weligeedna ka qaylinayna uu sii xoojiyey maxaa jira hadda ma jiro wax la yiraahdo federal state ee waxaa jira federal qabiil hebelaan nahay meel heblaan degannahay annagaa madax bannaan war qabiilkii waa sawkan ka cararayna ma qabaa'ilkii isu dhawayna wax isku darsamayaan oo say u dirreenba lama heshiisiin waxay tabayaan inay maaragtay heshiiskii ka maqan yahay iyo wax wadaagii ka maqan yahay muxuu carfintoodii iyo sumarintoodii maqan waxaa maqan is-aaminaadoodii nin walba nin anigu meesha aan deganahay anaa iska leh waa inaan anigu ka talshaa oo maaragtay jaabka ku rita waa federaalku Soomaalida wuu anfacayaa ma anfacay hadda ma taagna waa la taagan hadda tatbiiqii taagan tahay ma anfacay xilligeed waa la soo dhaaf hadda gobolka kamid ah tijaabiye shaqadu way wataan inta kale sidee loo dhaqan gali karaa muhiimad ay tahay in laga helo shacabka baydhabo waxay aad u rabaan federalismka sababtuna waxaa waaye maadaama mataqaanaa historically ay dareemayeen taariikh ahaan in mataqaanaa awoodda in awood qaybsiga aan laga siinin qaybta ay ku lahaayeen siyaasadda Soomaaliya oo markaad fiirisid laga bilaabo dawladdii lixdameeyadii ilaa iyo dawladdii siyaad barre intay dhaceysay ilaa iyo macnaha ilaa waqtigaas waxay dareemayeen in ama xataa ku qoran oo fact ah in mataqaanaa awood qaybsiga dawladda ama kabinetka ama saasoo kale inaan laga siin qaybta ku lahaayeen dadka ugu horreeya dalbada ee Soomaaliya in federal laga dhigo oo xukunka la baahiyo waxay ahaayeen xisbi ka yimid dhinacaas oo eridaas macnaha oo gobol South Central Soomaaliya meesha la yiraahdo hadda marka reebadabo marka sidii waxaan ka dareemayay waxay marka federalismka inay aad u rabaan oo boqolkiiba 75 dadka meesha ka soo qayb galay macnaha workshopka ama discussionka meesha aan ka sameynayna ama wada tashiga boqolkiiba 75 waxay support gareeyeen federaalka support gareeyeen marka taas waxay ku tusinaysaa number aad u badan inay rabeen federaalka laakiin waxyaabaha ay ka soo macnaha aan ka dareemayna inay ka soo horjeedeen oo ayna ku qanacsaneen waxa kamid ah weyga maanta uu socdo federalismka ama weyga loo baahinayo ama processka oo federaalka hadda loo dawladda loo sameynayo way ka soo horjeedeen waxay ku cileeyeen inuu yahay mid laga kor laga keenayo macnaha oo ayaga aan lagala tashan oo processka iyo wax dhanba ay dominate gareeyeen dad kale ama ha noqoto international community-ga ama dawladda federal government-ga boqolkiiba 75 dadka federalismka macnaha processka oo federalismka kuma qanacsana macnaha 75 waxay ku qanacsan yihiin federalism laakiin boqolkiiba 75 marka la weydiiyo processka weyga wax u socdaan ma ku qanacsan tahay waxay leeyihiin may boqolkiiba 75 waxay leeyihiin kuma qanacsanin qaabka hadda wax loo wado waa nala qaldan yahay koow mayni kala galdanyiin sababtoo ah habka federaalka waa in hoos laga soo dhisaa oo shacabka rabitaankiisa la tixgeliyaa balse qaabka hadda la wado waa mid kor looga keenay ummadda hataba koran nin gushayna hamaran nin ku inta nin ilroog geek saadunu hatu rogno at this present time markooyba rabitaankan ay wal ku bilaawahay ma jiraan hamara dad la ku darahay
انت ضل شيناهي حمر لها كبيهاي انت ضل شيناهي قاب كمركوي بوا قاب هو بوا فدرال كنا ويبا كابونيها إني خوص لها كل اسم ظهر انت اللي كل طلبه في كل لسان dadweynaha koonfur galbeed si hadday group 1 xataa sheegeen 1947 yaa jeediyeen way leeyahay federaalku markuu hadda waa hormuuda in dadkii 1947 ogolaaday hadda ma sii leeyin markuu waa qaadanay kaas kan hormuudka nin oo jawaabtu waa saasay ka biin dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe ka awood leen badii la faday dawlad goboleedka la faday sababaha jaran meernay hoostum baa ka dhigni markaasna lamba sakartiis isu gudjay sumadi awshay ma boogway kuna dhul boob ma fadaan beel kale ma fadaan wadankan yana nin dhaaf fadaan السلام عليكم وقتي قبل الله جميع ولا تفرقوا ما هنقادنا فدرال كان حنون متاجر سنين ما إن تاجر سنينه ونما يفضانه الصومالي أمد مسلم أطوء والبين يسكر كوي سنين فدرال كان استسبق أمريكاي كن سجل بقى فرت ضبضي هتل اللي أنا كون فرق البيت الصومالي ضلبتي كريد مركل أرجع عدالة درود مدرسوي ودنكو كجرتي أما دولتي كل رقم معين هدي هذا فدرنا عبد دولد سياسة عيدا بين دقالها كل مركل أرجع إن بيلوج إذا كتكر فلاسة يكون فرق البيت الصومالي برشيد دقنايت ما يكون أصلاً يقعد ذن فدرال سيستم سيو ولا يسجوني يوم كمان مرضان باهنتا حكمك ما أهمت لغا بارندقي ما أكل بارندقي وايو ان فدرال ولي أبي موشيني وين نكون إذا عد لي كده يغري دولة فدرال أجر فدرال أجر تلي ان فدرال ولي أبي موشيني وايو ما بعرك نبونا casharada ugu weyn oo aan ka baranay booqashada aan garow ku tagnay waxaa la dhihi karaa waa 3 cashir kow in dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan Garowe oo ah caasimadda Puntland ahna maamul goboleedka ugu horeeyay ka tirsan dawladda federaalka ah in dadkiisu ay hamuun u qabaan inay ka doodaan mowduucan federaalka ah si qoto dheerna waliba ay uga doodaan cashirka labaad wuxuu yahay in dadku ay dareensan yihiin in aan la iska raali gelin laga heshiinin dadka Soomaaliyeed aan ka heshiinin dhaawacyadiisa oo kala gaara dagaalkiisa oo kale heshiiskaasna ma ahan mid siyaasadeed ee waa mid bulsho oo dadka shacabka ah ay si toos ah uga hadlayaan ugana xajoonayaan dhibaatooyinkiisa oo kala gaaray qodobka saddexaadna wuxuu yahay in runtii loo baahan yahay wacyigelin bulsho oo xoog leh waxaan ka aragnay Garowe iyo meelihii kaleba in dadku ay dareensan yihiin in fahamka laga haysto mowduuca federaalka iyo siyaabaha dalka loo federaaleyn gareyn karo iyo fursadaha iyo caqabadaha ka hor iman kara ay aad u hooseeyaan marka in loo baahan yahay wacyigelin bulsho oo xoog leh bal horta isku heer in laga soo gaaro fahamka laga haysto mowduuca federaalka federaal wuxuu yahay maanta dhan lagu soo celinay federaal marka loo sheego si kooban waa nidaam dawladnimo oo ku saleysan dastuur waxa gundhig u ah oo dadku ay ku heshiiyeen waa dastuur أنا waxaan qabaa dadka hadda buunburinaya federaalka oo federaalka buunburinayo inay ku xadgudbayaan xuquuq kale markay dad federaalka aramin baa jira for example aniga federaal diid baan dad badan baa federaal diida marka haddaynu iska dhaadhicino federaal inaan nahay marka waxay nabadgelyada baa dhib lagu noqonayaa waxoo dhan baa la isgorgaraynayaa waa la diraya dinaba dagaal la gelaya marka waxa fiican kelmadaas federaal baa dadka qaarkiis baa la dabacsan yahay in cod loo qaado marka inaan laga badbadin oo la oran federaal baa la yahay federaal ma nihin federaal waa u soconnaa san kale cidina lagama gelin karto qofka codkiisu le aniga markii laga bato oo layga adkaado isokey waa waraacaya laakiin iyadoo cod la qaada haddii cabdirashiid iyo inta yidhahdaan waraa federaalka qaada maya oranay federaalku waa nidaam annagu aan dooranay oo doonayno Soomaaliya maadaama sida Somaliland aanan ka go'in inaan wax kula wadaagno 24 sano oo Soomaaliya burbur ka jiray 24 ka sano Puntland waxa ka jirtay ismaamul baa ka jiray 16 sano dawlad bay ahayd inta ka horeysana waxay ahayd 8 sano ka horeysana waxay ahayd dad maaragtay madax leh oo madaxdooda ay maamulaan bay ahayd
afar iyo labaatankaa sano waxaa jirta meelo Soomaaliya ka mid ah oo wax ka jira wali aysan jirin baa jira ummaddu dhexdooda aysan isnabadgelinaynin maaragtay aysan maaragtay dadkii kale aysan nabadgelinaynin la isku dhacayo la isku kufsanayo la isku boobayo la isku dilayo baa jira oo wali Soomaaliya ka mid ah dad badan oo ka hadlayo la Soomaaliya safetyral noqonaysa ummad isku diino isku afa dad isku guriya baa islaynaya oo intaas oo dhan wax kala haga ayagoo diintooda haysto wada dhalashadooda haysto qaraabadooda haysto elkooda oo xataa Puntland markii laga reebo gobollo kale ah oo hal reer degan yahay baan reerkii dhexdiisa amaan isku haysan marka federaalka markii la keenay nidaamkaas la lahaa Soomaaliya federaalka lagu dhaqo xal baa loo arkay waa runa lama heshiinin wixii la ismicilin laakiin federaalka waxa laga dhigay maaragtay meesha ugu horeysa oo dadkii markii ay qolo walbaaba gaarkeeda ay isu maamusho oo la kala baxo waxa la leeyahay qolo walba waxa ay leedahay iyo waxa la isla lahaan karo la kala baxo Soomaali oo dhan markii intaas isugu timaado oo qof walba dawladdiisa iyo nidaamkiisa uu sameesto marka wax dhexe oo la wada leeyahay baa la heli lahaa oo dawlad dhexe baa la heli lahaa naturally waxaan anu aaminsanahay inay qaab federalism u sameeyeen waayo waxa u sameysnaayeen ka hor gumeystihii qaab qabiil been u degdeganay qabiilkanu halkan ku noolaa waxa weeyaan haddii abaar halkan ka dhacdo dadkani way guurayaan meesha roob ka da'ay bay aadayaan haddana meeshooda markay joogaan waxay leeyihiin nin qof isina oo ay uga dambeeyaan go'aanka isinkaas wuxuu leeyahay dad ka hoos shaqeeya waxa weeyaan qaab ay iyagu isku maamuli jireen baa jira qaabka marka aad fiirisid oo tixraaca waa qaab oo federalism oo kala ah dadka Soomaalidu ka hor gumeystihii wax dawladda ma aysan lahayn waxay wadaagteen ma jirin laakiin waxa weeyaan qolo kasta iyada meesheeda maamula jiray gumeystihii markuu soo galaan qabiil kasta wuxuu meeshii qabiilka haystay madaxdeedii buu la dhilgaray dariskii buu la hadlay oo waxa weeyaan qaabkaas buu ku soo galay Soomaaliya haddaan diiloshisiin loo sameyn oo aan la isu keenin oo heshiis aan la dhex dhigin oo gacmahan siyaasadeed aan laga dhex saano iyaga la isu keenin waxa weeye waxba ka hagaagmayaan ama dawlad cadaalad ah oo Soomaaliya oo isu keenta aysan dhismin xaqiiqda dhabta marka laga hadlo weeye oo runta laga hadlo dadkii heshiis ku ah baa wax wada samaysta wax ku heshiiya meel kastoo Soomaaliya la taabtana waa boog Puntland dhexdeeda baa booga jiraan oo si badan la isu wada haysta oo kala aragti duwan haddii maamulo kale hore u jiray ka Puntland wada hadlaan sida galmudug baa boog kala kacaya marka waxaa moodaa inaan boog wada taabanayne ay ku habboon tahay ummadda dib u heshiisiinteeda in laga hormariyo doodahan kale marka taa lagu heshiiyo baa doodahan si wanaagsan oo niyad samiya looga jawaabi karaa waxaan ka baxsanaa marka safarkeena gaalkacyo runtii anigu aad buu ila fiicnaa macna qaabilaadii aan kala kulanay dadkii aan u tagnay iyo sidii maalintii loo soo xaadiray iyo sidii dadku ay dooda u wadaageen fikrado kala duwan ay meesha loo soo saaray dadka da'da weyn iyo kuwa dawladda ku jira iyo kuwa culimada iyo dhalinyarada iyo haweenkan kulligood ay runtii mawduucan ay ugu cadcadaayeen fikradaha ay ka qabaan ama ay u doonayeen inay soo gudbiyaan anigu gaalkacyo waan ku noolaan jiray dugsi saraan xataa form 1 ka dhigtay xaafadda aan markaa ku deganay xaafad anigu aan macnaha aan hadda ka hor u badnaa ma ahayn laakiin soo dhaweyntii aan la kulannay iyo sidii dadku ay noo walaalaysanayeen iyo amnigeena loo sugahayey runtii walwalka dadka qaarkiis ay qabaan ama khadka cagaaran dadka u dhexeeyo macnaha walwalka ay qabeen xataa meesha kama muuqan si wanaagsan oo qiimo badan baa naloo soo dhaweeyey dooduna dad adag bay ahayd dadkuna diyaar bay ahaayeen inkastoo dhinac ay u badnaayeen oo la oran karo didsanaanta ay ka didsan yihiin arrimaha federaalka ama maaragtay shakiga ay ka qabeen ay macnaha meelaha laga soo arrintan laga soo riixayo oo ay dibadda aad dadka qaarkiis ku tirtirsiinayeen haddana fikrado kala duwan oo la dhihi karo Soomaaliya ama kuwa aan Baydhabo kala kulanay ama Kismaayo kala kulanay ama Garowe kala kulanay kulligood waa yaaleen waxaana aad loo soo celceliyey dib u heshiisiin in loo baahan yahay waa la soo celceliyey taasoo ahayd arrin magaalo kasta aan ku aragnay waxaan kaloo anigu aan si gooni u xasuustaa nin sheekha oo cimaamad iyo khamiis iyo garweyn qaba oo aad iyo aad dawladda siyaad bare u ammaanay oo markaas anigu aan la kaftamay oo iri adoo gaalkacyo jooga saan u labisan inaad hadda dawladda siyaad bare aad maaragtay aad ugu ooman tahay waa arrin xusideeda mudan dadkuna aad bay ugu qosleen oo la yaabeen
marka runtii arrin loo baahnaa bay ahayd gaalkacyo marka inkastoo magaalo kulul lagu dacaayadeeyo wanaag iyo soo dhoweyn iyo bisayl baan kala kulannay dareenkii kala duwanaa ee dadku ay qabeenna way nala wadaageen hadda waxaan u soconnaa arrinta federaalka iyo dalkan sidii loo federaaleyn lahaa inaan bal fiirino oo si degan intaan gadaal ugu istaagno hadda xawaari wuxuu ku socdaa xawaali oo hab degdeg ah oo bulshada caalamka iyo dowladaha Soomaaliyeed iyo maamulada ay ku gacanta kula jiraan anna marka intaan gadaal uga degno shacabkii iyo odayaashii iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo ganacsatadii iyo haweenkii iyo aqoon-yahankii in ayagana bal wax weydiino oo si hadhow 20 sano kadib 10 sano kadib 5 sano kadib bal haddii wax la isweydiiyey wala ardaydeena wax ay darsi karto marka hadda waxaan sameynaynaa marka dad kale oo baaraleelo arrinta si cilmi u fiirinaya in la helo oo talo iyo bulsho iyo caqli bulshana ku dhisan laba nin ananaati la galiyo baa la yiri xilliga hore ananaatiga dadka waalwaala markii la galiyo waa la soo bixin jiray bal midka raystay iyo midka kale marka subaxdii dambe laba la soo bixiyo baabuur baa loo qor markaas waxa la yiraahdo gee steerinka ku leey mid baa yiraahdo soo kicinaya dudhaa kii kale haduu ku qoslay furihii jeebkaygu ku jira marka anaga furahani jeebka dad kale ku jira wali uma madax banaanin inaan wax sheegno su'aasha labaad oo ah barnaamijka federaalka Soomaaliya ma mid ku yimid baa rabitaanka dadka Soomaaliyeed mise waa mid dusha bulshada caalamka ay u doorteen waxaan dhihi karaa eragaas bulshada caalamka ay u dooreen xataa maahan sax macnaha way bulshada caalamka waxba nama doorin markii wax qofka options la siiyo ama talooyin la siiyo ayaa wax loo dooraa laakiin waa mid ay wax nagu qasbeen way wixii ugu xumaabeen nagu qasbeen marka waxaan dhihi karnaa bulshada caalamka nama doorin ee waa nagu qasbeen iska daa inaan qaadanay may waa nagu qasbeen ba qasab weeye waa sanka inay geliyeen sidee u aragtaa habka ay hadda wax u socdaan oo dalka lagu federaaleynayo runtii habkaas waxa isku sheegnay inay wax badan ka qaldan yihiin oo soo ahay mid siyaasadeysan laga baaran degay oo wax un ay ku jiraan laakiin wadadii wali aad dooranaa ku soconaa annaka waxaan leenahay federalismkan ku habboon maxaa yeelay caalamkaaba noo dooray Soomaaliya asaga wax ka akhrisanay caalamkii baa noo dooray maba ka maaranna caalamka annaga midka ugu dar waxa weeye waa midka ah in dawladda la daciifiyo oo awoodda dawladda la daciifiyo isla markaas dawlad goboleedyadu ay yeeshaan awood ugu badan cid raban ay la macaamili karaan wax raban ay soo gali karaan shidaalka la soo qodi karo shidaalka Soomaaliyeedna hadhowtii hal qabiil ama hal beel jeebkeeda ku dhacaysa mararka qaar koodna loo adeegsana dagaalo beel loo adeegsana tigirtoos safarkeena Kismaayo wuxuu ahaa safar aad u xiiso badan Kismaayo waa magaalo ay ku nool yihiin Soomaaliya oo dhan waxyaabaha ay noo sheegeen waxa ka mid ah 3 siyaabood inay ku taageersan yihiin midda koowaad waxay sheegeen inay ku taageersan yihiin in uu yareynayo federaalka iska qabsiga iyo khilaafaadka iyo colaadda sokeeye ee soo jirtay oo aan laga heshiinin midda labaad khayraadka dalka in gobolada loo qaybiyo ee uu keenayo federaalka iyo mid saddexaad ah in ay soo doortaan maamulkooda ay u madax banaanaadaan federaalna horta waxaas qof aqli leh oo maskax leh ma loo sheegi karaa waa arrin aad u dhib badan maxaa jira dadka Soomaaliyeed oo dalkan degan waa qoys annaka dad yaraanay markii adduunka loo fiiriyo hadda Ethiopia kale waa naga badan tahay 70 milyan lagu sheegaa Kenya waa 40 milyan Soomaaliya markii ugu dambeysay maxaa la yiri 8 milyan ama 6 milyan waay dalkeedu dhin cidlo waay hadda diyaaradda ay yeelaysa haddaad inta baabuur ka raacdaan jilib 10 qof aad ugu tagaysiin markaad jilib ka tagtay ilaa baraawana qof banba arkaysiin meesha idinku ugu socotay buul mareer waay dadkaba dal ma joogo federaalka dadka raadinaya oo federaal aan soo qaaday dhahaya oo federaal Soomaaliya inay naqataan ku tashani dhahaya dastuurkana waxaa la yiri dib u habeen lagu sameeynaa federaalka miyaa dib u habeen lagu sameeyay yaa soo go'aamiyay ma abtibaa dadkii laga qaaday ma dadkaa doortay ma nin hogaamiye kooxeed ahaa xukunkiisii hogaamiye kooxeednimada inuu ku adkaysta raba ma sideen wax ku boobnaha noogala tashtay ma garan karno walaalay hadda waxay ka dhawaajiyeen dadka
si ay ku kala badbaadaan war hadda inta kismaayo aan ku deganahay isku qabiil ma nihin wax iska kaayno khusay ma jiraan waa kan geesay nimankaan fadhi ma taqaaniino jireer waaye anina jireer u ekaan ah 24 sano dadkii xuquuqdooda la dhacayo lagu joogsadayaan dadkii la baabi'iyaan hataa midaan kuu sheegaa oo aad kugu sii adkaynaa waxaa la yidhi 4.5 wax lagu soo qaybiyey ani qabiilkayga coormalo waa 4.5 kuu kuma jiro runaan kuu sheegaa ma ku jira dowladda aad sheegaysin ani xildhibaanku ma qabo madax ma kulihi qabiilka hadda kismaayo haddii degmadaan la xisaabtamana ama qabiilka labaadaan naqana ama qabiilka koowaadaan naqana ma garata adiga dulmiga intaas la eg dadka ku dhex jira waxa ay samaynayaan horta ma hirgelayaan waay arrinta ayada ee marka waxaan qabaa anigu soomaalida waxay ku mahmahdaa wixii uma shukroona ilmaheeda u roon soomaaliya waxaa u roon cadaalad iyo kitaabka allah dastuurkaaga waxba ka jirinba kii ilaahayna waa la diiday marka anigu waxaan aaminsanahay haddii federaal la naqanayo soomaaliya in dastuur loo sameeyo abti laga qaado waana mahadsantihiin wixii dhacay oo soomaaliya ka dhacay ilaa 80-yadii wixii ka dambeeyey oo burbur ahaa oo baaba ahaa oo ay ka mid tahay 91 xasuuqii ka dhacay magaalada muqdisho xasuuqii ka dhacay beledweyne ka dhacay xasuuqii ka dhacay gaalkacyo ka dhacay xasuuqii ka dhacay magaalada kismaayo ka dhacay waxaas oo dhan oo dhibaatooyin ah oo burbur oo kala carar ah oo lagu kala tegay oo ilaa iyo hadda cid ka mataqaana isheega u tiri annagaa waxaa geysanay ama mas-uuliyaddeeda qaadanay ama meel lagu heshiiyey aysan jirin baa waxay keentay in nin walbo la yidhaahdo nin walbo deegaankaaga dhiso dadka hadda federaalka iyo gobolladan ku mashquulsan arrintaa wax laga weydiiyey ama wax la yidhi macnaha arrintaas sameeya maba jirinba waxbaa noola keenay kuwa noo keenayna kor baa looga sii keenay waxay iyaga ay ku fikireen ma aha waa wax loo keenay wixii loo keenay ayay annagana noo keeneen federaalka aragtidayda anaga waan rabnaa waxaana u rabnaa in loo helo nabad iyo soo dhawaansho iyo isdhexgal dadka isdhexgalo oo gobolban gobolka xigo heshiis iyo nabad iyo xabad joojin laga helo oo odaaga cidda aad la tahay ay u soo dhawaad halka ay xabadda ku istaagto waxa qaybsina u yimaado aragtidayda macnaha midda kaleeto markii la isu soo dhawaado xabadda istaagto wax waa la wada dhisan karaa waa la isu imaan karaa dadka waa isdhexgeli karaa gaadiidka waa isu socon karaa federalismo wax la samaynaya ilemo federalismo ani hadda jareer baan ahay ani federalismo waaba rabaaba waan rabaa aniga waxaad qarqarinaysaan baad rabtaan inaan la arkin 4.5 baad rabtaan inaad nagu wadaan maalin walba annagana waxaan rabnaa meel wax lagu rido inaan ku heshiino war sanduuqa ma la keenayo federalism sanduuq ma la keenayo america wariya firi subahili wili u dhashay baa xukuma aniga waxaana awaas xasan xuseen oo aniga aan dhalay inuu xukumaan raba idinkana dheer kan leerta sanduuqa san ku ridaynaa sanduuqa saanu ku badinaynaa jareeraana qaban doona dalka heshiis meeshaas u jira